Assalaamu calaykum saaxiibayaal kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada qaybtii 7aad ee sheekooyinkii qosolka badnaa ee kaftankii Bisle ama Bisle Jokes waxay inoo mareysay sheekadii iga badan sheekada xigta waxaa samaysay Hindiya saaxiibkay Haaruun Axmed Cabdulle asagoo gaalkacyo ka yimid baa Hindiya loo soo diray meeshii uu dhar ka soo qaadan lahaa wuxuu hore u soo qaatay haaf sonkor ah iyo 5 kiilo oo calayn ah tooreyna waa xiran yahay laanta socdaalka ee Hyderabad baa ku dhigtay waxaa la weydiiyey mididan inteed u wadataa wuxuu dhahay ragaan hubaysnayn waa rig aan geesa lahayn galxobtii waa laga qaaday markuu noo yimid baan weydiinay sokorta iyo calayntana maxaad u soo qaadatay kulaha warshaha la'aan inay igu dhacdaan ka cabsaday ee Hindiya sokor ma laga helaa jawaanka uu sokorta ku watana waxaa ku qoran made in India waxaa lagu sameeyey India sheekada xigta waan ku cadaysanaa nin fulay ah baa tuug u soo dhacay islaantiisii baa ku tiri waryaa orod oo nin iska dhig oo tuugga naga dhici tuuggii markuu jaqafta maqlay buu iridda ku gabaday ninkii markuu soo istaagay deerkii oo iftiin ah buu arkay tuuggii oo taagan albaabkii uu ka soo baxay geeskiisa markaasuu aad u naxay oo gargariiray tuuggii oo fahmay ninka inuu cabsanayo baa yidhi waryaa halkeed u socotaa miskiinkii wuxuu yidhi abbow musqushaan u socdaa tuuggii baa weydiiyey budkan aad gacanta ku sidatana maxaad ku samayn rabtaa ninkii baa yidhi waan ku cadaysanaa sheekada xigta sug waan dhiman doonaaye rag marqaan ah baa sheekaysanayay mid baa yidhi hadda ka hor baa diyaarad nala qaraxday mid kaloo meesha fadhiyey baa weydiiyey oo maadan dhiman miyaa wuxuu yidhi war sug hadalka hayga boobine waan dhiman doonaaye sheekada xigta qabrigaada sii qodo wiil baa balwad weerarisay markaas buu maalinba sheeko cusub hooyadiis lacag uga qaadaa muddo markuu sidaas ku waday buu maalintii dambe hooyadiis ka waayay lacag si islaantu lacag uga helo buu yidhi haddaan lacagta la isiin sun baan cabbayaa markaas reerka isagaa ugu weyn kan ku soo xigana waa 10 jir cidduna xoog kale ma haystaan midkii ku soo xigay oo islaanta ciidan u ahaa baa yidhi abboowe intaadan sunta cabbin qabrigaada sii qodo oo meesha ku dhacab annaga kuma qaadi karno si aan ciidda lee kuugu shubno sheekada xigta waan ku jeclahay heblo nin baa waagii MSN la isticmaali jiray hadba gabadha uu markaas shukaansanaya magaceeda wuxuu ku qoraa meesha kore waan ku jeclahay heblo gabar gaanjibo ah oo aad u dhib badan baa u fiirsatay markay soo gashaba magac kale baa ku qoran markii ay la soo hadashana wuu beddelaa markii dambe bay dhowr ciwaan u soo samaysatay saaway shukaansatay sida caadadiis ahba hadba tan uu shukaansanaya buu magaceeda ku qoraa inta kalena wuu iska oodaa yacni blog buu saaraa markaas bay marba ciwaan ku weydiisaa yaa waay heblaayadan wuxuu dhahaa waa hooyaday magaceeda markaas bay tidhi hooyada magacyo badanaa ma furo bastaarda guys micnaha bastaard ani ma fahamin haddii aad fahamsan tahay qaybta kommentiga nagu soo qor sheekada xigta doofaar dhalay gabar reer mudug ah baa waxaa shukaansaday wiil reer xamar ah markaas bay tidhi aniga in la ii ammaano oo la ii gabiyo baan jeclahay ee maxaad haysaa ninkan waxaas maba yaqaan laakiin waa nin naag rabee wuxuu yidhi dhuubooy dhareerkaada dhala iigu keen waan dhammaa asagoo hadalkii wada bay intay dharbaaxa uga riday bay tidhi doofaar dhale waxaas ma hadalbaa sheekada xigta wax kasta waan kuu samayn karaa wiil baa gabar ilaa u calaacalay oo jacayl u sheegtay calaacalkiis waxaa ka mid ahaa wax kasta waan kuu samayn karaa jacaylkaada dartiis waxay ku tidhi haddaad wax kasta ii samayn karto hal il ii soo bix isha cuqdad ku haysa qofta sheekada xigta maxaad soo doontay wiil markaas soo qaangaaraya oo ku jira xilliga ay kurayda naag kasta iskaga hawoodaan baa hooyadiis cajiin u dirsatay markuu makiinada tegey baa wuxuu arkay gabar naasadha dheer oo taagtaagan leh ishuu ka buuxsaday waana ku dheegaagay gabadhii baa si ay ishiisa iskaga jeedisay waxay tidhi waryaha yariisow maxaad soo doontay wixii loo soo diray intuu ilaaway buu yidhi hooyaa naas ii soo dirtay sheekada xigta armaad iska kay cafisaa mid mooryaan ah baa wuxuu ku dhacay mid miskiin reer xamarweyne ah kii miskiinka ahaa baa yidhi ilaaha joogo aakhira leen kugu sugaa mooryaankii kulahaa kuwo badan oo kaa horreeyey baa xagga igu sugayee amuu safka kugu dheeraadaa markaad isugu weydo armaad iska kay cafisaa saaxiibayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena maanta intaan barnaamij la mida ku kulmi doono waa saaxiibkiin Faarax Fawzi oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabad gaali